قصة saxaabigii ibnu cabbaas la yidhaahdaa siduu soo wariyey ee imaamu albukhaari uu ku soo saaray saxiixiisa wuxuu leeyahay ibnu cabbaas baa wuxuu leeyahay maka oo lamadega ah aan cidi joogin ayuu nebi ibraahim soo kaxeeyey haweentiisii haajaro ahayd iyo ilmo yaroo ay dhashay oo ismaaciil ah hooyadaa umusha ah oo nebigaasi wado ayuu wuxuu keenay saxaaraha carbeed meesha imaka maka loo yaqaano oo lamadegaana wax adduuna wuxuu u siday qarbad ama sibraar ama saan biyo ku jiraan iyo weel kale oo waxoogaa timiri ku jirto qarbad biyaa iyo qarbad timira labadaa inood buu wax adduunana wataa dabeeto intuu dhigay meeshii ayuu ibraahim iskaga tegey waxaad qiyaastaa hooyo dayacan oo aan odaygeedii la joogin oo la geeyey meel lamadega ah oo aan cidiba deganayn oo cid u dhowo ay og tahay aanay jirin oo meesha la dhigay aanay baad iyo biyatoona oolin oo iyadu wax adduuna haysata hal qarbad oo biyo ah iyo hal qarbad oo timiri ku jirto ama laba shay laba weeloo midna timiri yari ugu jirto midna biyo ugu jirto markay aragtay ibraahim oo iska tegaya bay su'aal weydiisay waxay ku tidhi ibraahimow ayna tadhab watatrukuna xaggaad qabanaysaayoo nagaga tegaysaa bay tidhi markay aragtay ibraahim inuu xidhxidho iska tegey ayaa waxay tidhi xaggaad intaadna dhigtay aad nagaga tegaysaa ma waxaad nagaga tegaysaa bay tidhi waadigan ama dooxadatan alladii laysa fiihi aaniisun walaa shay dooxadan lamadegaa ee aan cidiba joogin ma halkaasaad nagaga tegaysaa bay ku tidhi nebi ibraahim lamuu hadal ee uu iska socday kamay hadhinayana way daba socotaa oo ilmihii intay ka timay isagii daba socotaa oo su-aasha ku celcelinaysa mar qura muu soo eegin ee uu iska sii u qadaad jeediyey oo iska sii socday markii dambey su'aala weydiisay allahu amaraka bi haada ibraahimow sidan ma ilaahay baa ku faray bay tidhi intaad halkaana dhigtay inaad iska tagto ma wax alla ku farayba qaala nacam haa buu ku yidhi oo ilaahay baa sida tanna faray u fiirso gabadha tan sida ilaahay u rumaysnayd siday u rumaysnayd in awood dunida oo dhan ugu weyn isaga uu yahay in wax waliba biyadihi lmulk wax waliba inuu gacantiisa ku jirto dabeeta waxay tidhi idan laa yudayicuna haddaad alle nagaga tagtay allana dayici maayo bay tidhi ciddaad nagaga tagtay hadduu alle yahay subxaana wa tacaala ilaahayna ma dayacayo dabeetana way iska noqota ibraahimna wuu iska tegey waa tawakul cala allah waa gabadh tusaale ku ah qofka mu'minkii hadduu ilaahay rumeeyo oo uu jidkiisa ku toosnaado inuu ilaahay faraj u furayo waa gabadh ay ka muuqato iimaankay alle ku qabto waa gabadh ay ka muuqato markaasi hadduu nebi ibraahim sheegay arrintani inay wax xagga alle ka timi ay tahay inay ilaahay u hoggaansan tahay oo aanay ka warwaraynin hunguri ibraahim wuu ka tegey ibraahim laftiisa alla imtixaamaya oo ilma aad dhashay iyo haweentaada intaad cidla dhigta ka dhaqaaq waa imtixaan ibraahim waxyaabo badan baa ilaahay ku imtixaamay nebi ibraahim waxaa ka mid ahaa in la yidhaahdo wiilkiisii markuu soo kobcay gowrac waa ilmihii uu dhalay baa la yidhi birta mari waxaa ka mid ahaa in dab lagu riday oo dad diin uu sheego dab lagu ridayey imtixaanaad badan baa ilaahay ibraahim mariyey qur-aankana ilaahay wuxuu kaga markhaati kacayaa nebi ibraahim wax allaaliya wixii la geliyey imtixaan inuu fuliyey laakiin bal haweentiisana aan eegno nebi ibraahim markuu arkay inay noqotay ayuu buur yar ama taaga yar intuu ka dhaadhacay ayuu dabeeta istaagay isagoo ilaahay baryayoo leh ilaahayow reerkaygii waxaan dejiyey waadi lamadegaana rabbanaa innii askantu min durriyatii biwaadin hayri dii zarc cinda beytika almuxaram ilaahu reerkii waxaan dhigay buu leeyay ama durriyadaydii waxaan dhigay meel lamadega ah oo beydkaaga xaraamkaa u dhow
ilaahu waxaan u dhigay inay salaada oogaan ee waxaad ka yeeshaa quluubta dadka inay xaggooda u soo janjeersato ilaahu midho ku arsaaq waxay mudan yihiin inay kuu toobad keenaan inay kuu shukri naqaan gabadhii timirteedii iyo biyaheedii bay iska cabtay ilmaheediina naaskay nuujisatay laakiin muddo markay joogtay baa biyihii dhammaadeen iyo wixii ay haysatay dabeetana way harraaday markay harraadayna naaskii wuu gudhay iyadiiyo ilmihiiba way isla surbacaadeen waxay aragtay ilmaheedii yaraydoo laba boglaynaya oo gaajiyo harraadu ku dhan yihiin oo iyana aanay waxba u haynin hooyo qiyaas meel cidla keligeed joogta oo aan cidnaba haysan iyo ciirsi toona oo waxay cunto weyday uu hor yaallana ilmaheediiyo gaajo la jiifi karila oo qaylinaya waxay isku dayday markaa ugu yaraan bal ilmaha inay ka indhaqarsato oo sidan uu sakaraadaya naftu u haysato aanay sii eegin dabeetana way iska socotay waxay fuushay buurta Safa loo yaqaano Safa markay kortay ay cabbaar ku taagnayd ama joogtay ay haddana xaggii waadiga dib u soo jalleecday cidna way arki weyday markay cidna arki weyday ayay sidii qof daalan iyadoo iska soo dhaadhacday oo haddana dib u soo noqotay dabeetana buurta kale Marwo la yidhaahdo ayay gaadhay way soo eegtay meeshii iyana waxba waa arki weyday xag iyo xaggaba markay u kacday ee waxba arki weyday bay soo noqotaa kolna ilmihii bay xasuusataa bal soo eeg bay tidhaahdaa inuu naftu ka baxo waa soo roortaa kolla buurta kale kortaa waxay tidhaahdaa bal in dad iyo wuxuun aad alla kuu bixiyo aad aragto 7 jeer markay meeshii carcarartay ayaa gabadha tan ay soo noqotay ibnu Cabbaas wuxuu xadiidkaasi qaybaha uu rafcinaya uu nabiga u rafcinaya waxa kamid ah inuu nabigu yiri calayhi salaatu wasalaam fadhalika sa'yu an-nasi baynahuma kaasibuu nabigu leeyahay calayhi salaatu wasalaam waa sacyiga ay dadku meesha la ordo xajka labada buurood la dhex cararo markii ay soo noqotay kadib ayay cod maqashay dabeetana iyadii baa isla hadlaysa waxay tiri sah naabalaamu bay iyadii isku leedahay nafteeday la hadlaysaa dabeetana uma tasamacat dhegtay raariciso waxay tiri bal xoog wax u dhagayso cod bay saani markaa u maqashay codkiiba waxay ku tiri markaa qad asmacta in kaana cindaka gawaasin war lagu maqal bay tiri haddii aad wax tarayso codkaaga waan maqlayaa haddii aad wax gargaari karaysa bay ku tiri waa malag ilaahay u soo diray subxaanahu wa tacaala malagii ayaa markaasi cidhibta ama baalka ku dhuftay meel hoose dabeetana ilbiya baa ka soo burqatay meeshuu ku dhuftay biyihii markay ka soo baxeen ayay bilowday inay biyaha xerayso xawd dar yar ay u samaysato oo ay sacabka ku dhuuqdo waatuu nabigu lahaa calayhi salaatu wasalaam allaha u naxariisto ismaaciil hooyadii low tarakat zamzama hadday ka tegi lahayd buu nabigu leeyahay calayhi salaatu wasalaam zamzamkaasi biyaha zamzam ha iska socdaane lakaanat zamzamu caynan muciina waxaa zamzamku noqon lahaa buu nabigu leeyahay il dareerta oo dadkoo dhamme ay ka cabbi karaan waa ceelkan zamzamka loo yaqaano ee xajka ku yaalla gabadhaas baa ilaahay u soo saaray way ka cabtay markay ka cabtayna way darartay dabeetana ilmaheedii bay naaska ku duwatay malagii baa haddana la hadlayo wuxuu ku yidhi laa takhaafu dayca inaad luntaan ama dayaca ka baqina buu ku yidhi fa inna haadaa baytullah halkaas buu yidhi ilaahay gurigiisii baa ah oo wiilkan aad dhashee yar ee aad naaska nuujinayso maanta iyo aabbihii baa baydkan dhisi doona ilaahayna dadkiisa ma dayaco ayuu malagii ku yidhi gabadha tani waxay miaal u tahay gabadh kasta oo mu'minad oo ilaahay tala saarata oo aan ilaahay jidkiisa dhaafsiisanin hunguri reeraha maanta Yurub jooga waxa u badan la isku dilaa waa adduun waxa u badan dadku wadankiisii uga tagaa waa adduun waxa u badan dadku xumo badan laga yaabo inuu uga dhaco waa adduun laakiin ilaahay gabadha tan wuxuu tusaale inooga dhigayaa
inay tusaale qiyaamaha u tahay qof kasta oo dumar ah iyo qof kasta oo nin ah oo markaasi ilaahay tala saarta oo ilaahay awaamirtiisa raaca inuu faraj helayo waman yattaqi illaaha yajcal lahu makhraja baa ilaahay yidhi ciddii alla ka cabsata waayo gabadha tani su-aasha qudha ay nebi ibraahim weydiisay wuxuu ahaa ma ilaahay baa ku faray bay tidhi sidan in la yeelo markuu ku yidhi haayo ilaahay baa farayna waxay ku jawaabtay ilaahay nama dayacaya hadda mar hadduu ilaahay sidan yidhi dadka mu'minkaa waxa lagu yaqaana waxa weeyaan inuu yidhaahdo shaygan la sheegayaa qur'aanka iyo sunnaha nebiga calayhi salaatu wasalaam ma ku sugan yahay haddii la yidhaahdo markaa haa inuu yidhaahdo markaa uu fuliyo isagoo rumaysan dhib kasta oo ka timaada inaanu ilaahay dayacaynin gabadhaasi karaamo alle uu karaameeyey daraaddeed oo loogu talagalay inay gabadha tani taariikh yeelato oo ilaahay ugu talagalay inay noqoto maclam ama tilmaam ummadda muslimkii ay tilmaamsato ayaa ilaahay wuxuu ka dhigay acmaashay samaynaysay qaar ka mida arkaanta ugu waaweyn ee islaamiga ah baa ilaahay ka dhigay inuu mid ka mid noqdo xajka marka dadku xaj tago meel baa jira la ordo asacyu bayna safa walmarwa waxaa loo ordayaa qofka mu'minka in dib loo xasuusiyo dadkii ilaahay rumeeyey ee halkan maray camalkoodii yani waxaynu naqaanaa waxyaabahan loo yaqaano dabaaldega iyo waxaan la sameeya waxa weeyaan xus la rabo qofka in la xasuusiyo maalintani qiimahay lahayd ama ninkan dhintay qiimuhu dadkan ku lahaa islaamku qofka ma xuso inta badan oo qofku ma aha waxa weeyna la xuso waxa la xusaa acmaashu qofku geystay sida daraaddeed baa islaamku sawirada iyo mithaalada iyo sanamada iyo waxa la dhiso lama rabo waayo sanamku ma aha qiimaha ee waxa la rabaa qofkani camalku geystay camalkuna waa wax taariikhoo la wariyo oo la qoro ilaahay subxaanahu wa tacaala gabadhaasi camalkeedii iyo kalsooniday alle ku qabtay si dadka muslimkii taariikhdooda aanay marnaba u ilaabin baa laga dhigay cibaado ka mida cibaadaadka ugu weyne dadka muslimiinta ay sameeyaan oo xaja madhabu shaafici wuxuu qabaa inuu yahay rukni aanu xajkuba asaxaynin haddii laga tago madaahibta kale ee culimmaduna waxay qabaan inay waajib tahay dam lagu kabi karo waa masale fiqiya laakiin waa maclam ama waa tusaale ka mida tusaalayaasha diinta wuxuu kaloo yahay ceelkaasi biyuhu ka soo baxeen ee barakaysan ee uu nebi maxamed leeyahay calayhi salaatu wasalaam maau zamzami lima shuriba lah biyaha zamzam waa wixii loo cabo ayaa ilaahay kaaga dhigaya biyaha noocaasi waa gabadha tan biyuhu alla u soo saaray subxaana wa tacaala waa min karaamaatiha waxa uu tusinaya oo tusaale ka yahay dadka mu'miniintii gabadhay ku dayan lahaayeen tay tahay tusaale labaad haddaan soo qaato ku saabsan cunnada ilaahay qur-aanka wuxuu inoogaga warramayaa haweeney alle bariday oo weydiisatay ilmo khayr qaba in alla siiyo oo ilmaha khayr qaba dabeetana ay masaajidka ama macbadka ay ilaahay dartii ugu nadarto ilaahay uu siiyey gabadh markay uur yeelatay odageedii uu dhintay dabeetana ay gabadh noqotay iyadu wiilba islahayd buu noqon doonaa laakiin ilaahay gabadh buu ka dhigay gabadh wiilasha ka fiican gabadhaas waatuu nebi moxamed tilmaamaya calayhi salaatu wasalaam ilmo kasta oo la dhalo markuu dhasho shaydaan baa gujiya maryama iyo inankeedii mooyaane buu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam maryamo iyo inankeeda mooyaane qof kasta oo dhasha shaydaan baa gujiya buu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam xadiidkii saxiixaynka ku soo arooray maryama waxay mihaal u tahay gabadha daacada laasimta hadday gabadha muslimadda ahi ay daacada ilaahay laasimto in ilaahay iyadana adduunkeedoo dhan u ururinayo waxay mihaal u tahay karaamaadka la sheegiyo awliyada waa maqashaan dadku inay yidhahdaan hebel karaamaa ka dhacday akbar karaama qur-aanku uu sheego gabadh baa iska leh marka laga yimaado mucjizaat alambiyaa ee qur-aanku karaamo dhacday oo uu ka warramo qof mu'mina ka dhacda kuwa ugu waaweyn ee uu qur-aanku sajilay waxaa ka mida taa maryama waxay noqotay gabadh cibaado badan oo habaryarteed riwaayaadka qaarkood say sheegaanna walaasheed ayaa waxaa qabay nebiyullaahi zakariya dabeetana zakariya kafaalo qaadoo koriyey
gurina bay ku kortay waxay noqotay gabadh cibaado iyo iimaan lagu canqariyey oo diin nuugtay oo ku kobocday oo ku kortay oo ka shaqaysa meeshii alle lagu caabudayay baytullaahi ka shaqaysa cibaadadeedii markay tiro badatay xad bay gaadhay karaamaadka ka dhacaya qur-aanku uu sheegaya uu tilmaamayo inay cunno meesha taalle ugu iman jirtay iyadoo aan shaqaysanoo meelna qabanin ilaahay baa wuxuu tilmaamayaa intuu nebigii u soo galay markaa inuu ka yaabay un cunnadan meesha taalla weliba mufasiriintu waxay idhahdaan cunnada loogu iman jiray waxay ahayd cunno khilaafsan ta dadku uu haysto yacni beeraha waxaa jira raashin xagaaga go'a iyo raashin jiilaalka soo go'a wakhtiga qaboobaana dhir gaaraa baxda wakhtiga kulaylaana dhir gaaraa soo baxda marka kulayluhu jooga maryamo waxaa loogu yimaadaa bay idhaahdaan wixii go'i jiray wakhtiga qabowga wakhtiga qabowgana waxaa loogu yimaadaa iyadoo haysata summer timeka midhihii go'i jiray waa waxaad u cajiiba nebigii baa la yaabay gabadhan yar iyo cibaadadeed iyo waxaan ay haysato dabeetana wuxuu yidhi yaa maryamu annaa laki haada naha maryamay xaggaad ka keentay buu yidhi arrintan raashinkanuun meesha yaalla xagguu kaaga yimaadaa su-aashaa buu weydiiyey waxay ugu jawaabtay qaalat huwa min cindi illaah ina allaha yarzuqu man yashaau bigayri xisaaba ilaahay buu ka yimi bay tidhi ilaahayna cidduu doono isagaa arsaaqa xisaableeyey gabadha tan karaamadii ka dhacday waxay xasuusisay nebiga kani inuu dib alle u baryo nebiyullaahi zakariya waxba ma dhali jirin waanu gaboobay haweentuu qabayna waxba may dhalayne way gabowday odaya islaan gaboobay bay ahaayeen dabeetana nebiyullaahi zakariya isagoo nebiyabaa gabadhan yar cibaadadeed iyo karaamaadkan ka dhacaya markuu arkay ayaa waxay ku bixisay inuu dib alla u xasuusto isna alla baryo inay suurtagal tahay isagoo da'daa gaadho islaantiisuna da'daa joogta in ilaahay ilma siin karo hadduu ilaahay baryo subxaana wa tacaala ilaahay baa qur-aanka markaa wuxuu ku leeyahy hunaalik dacaa zakariya rabba halkaas baa ilaahay yidhi markuu arkay zakariye gabadhaan shaqo teginoo halkan iska fadhidaaba inay wax cunayso halkaa markuu arkay buu ilaahay baryey buu alla leeyahy subxaana wa tacaala qaala rabbi hab lii min ladunka duriyatan طayiba innaka samiicu ducaa ilaahayow durriyad fiican beer fiican isii buu yidhi adiga ducada aqbalee ilaahayna wuu ka aqbalo isna nebi yaxyaa la siiyey maryama waxay kaloo tusaale u tahay gabadh kasta oo qiyaamaha cifadeeda dumisa oo tidhaahda waan baahday bay tusaale u tahay walidaalik baa ilaahay subxaana wa tacaala qur'aanka wuxuu ku ammaanayaa ammaan gaar oo ay leedahay oo ah inay dhowrsanayd oo aan hunguri qaadin saa daraaddeed baa ilaahay wuxuu leeyay wamaryama bnata cimraana alatii axsanat farjaha fanafakhnaa fiihi min ruuxina wasadaqat bikalimaati rabbiha wa kutubih wa kaanat min alqaanitiin qiyaamaha gabadh kasta oo cifadeeda ku xadgudubta oo dhallinyaronima qaado oo magaalo gasha oo tidhaahda waan adkaysan kari waaye meel xun baan joogay waxaa la leeyahay maryamiba way adkaysatay wax bini aadam yeeli karo ayaad adigu dumisay maryamiba ilaahay tiisii bay raacday ee adaad diiday alle tiisii inaad raacdo waxa ilaahay uu tusaale inooga dhigay maryama inay aakhiro ibtilaaga ay u noqoto gabadh kasta oo lagu dhex ceebeeyo tolkeed laakiin iyadu go'aansata inaanay ilaahay jidkiisa marnaba ka weecanin inkastoo dadku ay waxay doonaan ka sheegayaan waxay doonaan dad ha sheegaane gabadh daahir oo cifadeeda ilaahay uu ka markhaati kacay oo haddana bulshadii ku xeerayd iyo dadkii la noolaa ay ku ceebaynayaan inay gabadh xun tahay bal ee ay ku leeyiin markay arkeen iyadoo uur leh ama iyadoo ilma sidata ay ku leeyihiin maad ahaan jirin adiguna gabadh xun waxaad ahayd maa kaana abuuki imra'a sawin wamaa kaanat ummuki bagiya yaa ukhta haaruun bay lahaayeen aabbahaana ma xumayn hooyadaana gabadh suuqa gashay ma ahayn adigu waxaan xaggaad ka keentay bay ku lahaayeen qiyaas inan yar oo cifadeeda dhowratay oo ilaahay caabuday
oo bulsho haddana la dhex timi iyadoo uur la un waxa dadkaasi ay odhanayaan ama waxa la sheegayo intee dhib gaadhaad u malaynaysaa gabadhaa miskiinta ah ee cibaadadeeda wadatay ee la arkay un iyadoo uur weyn leh bale la arkay iyadoo ilma sidata maxaase dadku ku odhanaya ilaahay waa ka yuhuud markuu ceebaynayo ku tilmaamaya waxyaabihii lagu nacdalay yuhuud inay ka mid tahay maryamo waxay ka sheegeen buhtaankii weynaa ay maryamo ka sheegeen inuu ka mid ahaa laakiin qofku hadduu ariiqa alle laazimo ilaahay baa u ballan qaaday inuu faraj u furayo maryamo yaa difaaci lahaa haddii la yidhaahdo inantani waxba may samayn iska daaya yaa dhegaysanaya ilaahay baa difaaco wuxuu ku difaacay waxaanay dadba filaynin maadaama cirdigeedii iyo sharaftideedii dad uu ku xadgudbay ilaahay baa difaac u sameeyey yaa difaac u noqday maryami yaa laytanii mitu qabla haada wa kuntu nasyan mansiya markay lahayd ayaa ilaahay faraj u soo furay oo waxa la yidhi dee gabadh tolkeed ku dhex ceebowday waa inay iska tagtaa markay iskaga tagtayna cidla markay u baxdayna wax la cuniyo waxba toona ma jiraan waa gabadh umulo oo hadda umulaysa dabeetana calaacalkii bay tidhi bal maan iska dhintaba ama tu aan laba garanayn ilaahu maad iga dhigtid bay leeday markay aragtay dhibta haysataa intay leeg tahay ilaahay baa faraj u furay oo waxaa lagu yidhi geedan timire aad joogto jirrideedun yaro taaba baa la yidhi ilaahay baa kaaga soo da'inaya rutaban janiya timirtu marka malabku ka da'aya ay jilicsantae aanay engegin ee sida malabka loo dhuuqo oo kale taas baa ilaahay kaaga soo dejinaya halkanna biyo kacab baa la yidhi hoostan hoosana biyo kacab timirtaada iyo biyahaaga isku cab oo waqarri caynan baa ilaahay yidhi ishaaduna ha doogsato waxba ha warwarin anaa faraj kuu furaya baa ilaahay leeyahay ishaaduna ha doogsatee waxba ha warwarin maryamo waxaa la yidhi tolkaa markaad u tagto adigu waxba ha isdifaacina iska aamu ilmahan yarun farta ku fiiq kanba alla ka hadlinaya isagaa ku difaacaya adigu iyo waxba ha qabanin iyadu ilaahay bay adeecday ilaahayna wuxuu tilmaamayaa farajkeedu siduu noqonayo adigu waxba ha isdhibin baa alla leeyahay mujarad waxaad samaysaa ilmahan tilmaam faashaarat ilayhi baa alla leeyahay ilmihii bay u tilmaamtay qaaluu kayfa nukallimu man kana fi lmahdi sabiya jees kalaa la bilaabo waxaa la yidhi waxaan yare dharabta saaran maxaanu kala hadalaabay ku yidhaahdeen markay tidhi anugu hadli maayo ilmahan la hadla kan maxaanu kala hadlaa baa la yidhi waad iswareerinaysaa une kii yaraabaa alla ka hadliyo wuxuu leeyahy qaala innii cabdullah aataaniya alkitaaba wajacalanii nebiya isagoo dharabta saaran buu leeyahy wardadow ilaahay addoonkiisii baan ahay nebi baanan ahay ilaahay baana kitaabi siiyey waa ilme la sido ayaa saa sheegaya ilaahay baa difaacay cirdigeedii iyo sharafteedii ilaahay baa u difaacay subxaana wa tacaala waxaa tusaale idinku filan qur-aanku uu tusaale u bixinayaa gabadh hooye ilmaheedii lagu weeraray laakiin uu alla faray wax adag hooye ilmo ay dhashay in la yidhaahdo ilmahaaga qaado baddaa ku rido iskaga tag anaa badbaadinaya intaad aqbali karaysa in lagu yidhaha qaad ilmahaaga oo intaad qaaddo baddaa un dhig dabeetana liivim ka tag adigu ilaahay baa badbaadinaye ummu muusa nebiyullaahi muuse hooyadii ilaahay baa qur-aanka inoogaga warramayo waxaa la yidhi qaad ilmaha oradoo baddaa dhigoo iska dhaaf adigu markaasaa ilaahay u ballan qaaday weliba aayadda qur'aana ilaahay leeyay waawxaynaa ilaa ummi muusa an irdaciihi faidaa khifti calayhi faalqiihi fi lyam walaa takhaafii walaa taxzanii ina raadduuhu ilayk wajaaciluuhu min almursaliin ilaahay wuxuu u tilmaamayaa aayadda tani laba amar iyo laba nahyi iyo laba khabar ayaa ku sugan waxaa alla u tilmaamayaa subxaana wa tacaala ilmaha naaska nuuji baa la yidhi haddaad u cabsooto hadduu boqor amar buu soo rogay ninkii kibreeye waddanka haystay uu leeyahay waddanka dadka ku noolee reer banu israa'iil la yidhaahdaa dumar mooyaane rag ma dhali karaan wixii ay rag dhalaan waa inuu dhintaa oo la dilaa wixii dumarana ha la daayo shaqaalaha noqdaane dawladdii amarkaa markay soo bixisay hooyadiina muuse hooyadiioo haysataana ay meesha joogtaa ilmahan xaggay qabadsiin way werwertay
ilaahay baa wuxuu yidhi markay umushay waxba ha warwarine ilaan intay uurka lahayd lama garanaynin wiil iyo gabadh waxay sido laakiin markaa umusho khatar bay ku sugantay waxaa la yidhi ilmaha kan adigu naaska iskaga du laakiin dee ilmo yari miyuu ku aamusaya wuu qaylinu wuu ooyiyo xaafadaha iyo jaarku waa lagu ogaanaya in ilmo meesha joogo marka uu rabshada bilaabo haddaad cabsata baa la yidhi in adigu badda ku rid qaado baddaa iskaga rid dabeetana baa ilaahay ku yidhi ha biqin hana murugoonin anigaa soo celinaya oo weliba rasuul ka dhigaya baa ilaahay yidhi anaa kuu soo celinaya isagoo weliba rasuulna noqonaye waxba ha u biqin haweenaydii qalbigeedii intay xidhxidhay bay ku ridday ilaahay baa u badbaadiyey waxa uu qur-aanku inoo tilmaamayaa walaal inan walaalkeedu khatar galay oo uu gacan gaaleed galay oo la faraya inay basaasi tagto waa inanay noloshu badday tol kaloo weydiiya cid wax u dhicisa oo la yidhi orodoo wax soo basaasoo soo dhegedhege bal wiilkii halku ka dhacay oo weliba loo diray mishanka ah inay boqortooyada qanciso ilmaha kan in cid u hayn karaysa ay jirto qiyaas inan yar oo walaalkeed loo baqayay oo ay ka baqaysay boqortooyadu inay disho oo ilmihiina gacantii boqortooyada uu ku dhacay oo loo diray mishanka inay ku guulaysato inay walaalkeed badbaadiso waxay tusaale u tahay gabadhu haddii ay mu'minada dhaba tahay inay qalbiga xidhan karto aanay baroor iyo baqatoon aanu ka muuqan karin inay iyadoo mishankaasi fulinaysa ay u tegi karto ninkii dadoo dhammi ka baqaya dadoo dhan laynayay inay u tegi karto weliba iyadoo ku doodaysa inay hayso wiilkan cid badbaadin karta waa muuse walaashi hooyadeed waxay tidhi nabalorodoo isha soo marmariyo eeg way bidhbidhaamisay waxay ogaatay in gacantii boqorrada uu ku dhacay dabeetana way u timo waxay tidhi waar anaa idiin haya cid u fiican oo korinaysana naas nuujin karta waa la shakiyey bay yidhahdaan mufasiriinta iyo waxaa la yidhi ma waxba isu tiiniyo waa kanoo may bay tidhi waxa unaan ilmaha kan cid dhowrtaan u haya yacni way awoodi kari waayeen inay qalbi jileec la timaado oo ama ay muujiso inay ilmaha kan walaalla tahay ama ciddan loo diraya inay hooyadeed tahay hooyadii waa la faray ilmahaagaa badda ku rid anaa ilaalinayana ilaahay intuu ilmaheedii u soo celiyey baa weliba lacag lagu siiyey iyadu markii hore waxay u baqaysay in la dilo badda ku rid baa lagu yidhina laakiin ilaahay intuu ilmihii soo celiyey baa la yidhi weliba lacag ku qaado oo ilaahay ilmaheedii naasihii dumarka kaloo dhan baa alle ka afxidhay oo wuu diiday nebi muuse naas kaleba inuu nuugo isagoo ilmo yara kadibna markii islaantan loo keenayna wuu iska jaqay waxaa la yidhi markaasi ha jaqee bal koriyo kharashkanna weliba ku qaado waa radaacadii ilmaheedaa weliba lacag lagu siinaya waxaa ilaahay tusaale inugu siinayaa qur'aanka haween dani ay badday inay shaqaysato waalidkeed gaboobay oo da' noqday aabbaheedoo da'a guriga jooga walaalana ma hayso u shaqeeyiyo cid biilisa duruuftu waxay badday inay xoogsadaan qur-aanka ilaahay wuxuu inoogu tilmaamayaa haweentaasi siday u dhaqmi lahayd mithaal baa layna siiyey nebiyullaahi muuse markuu ninka soo dilay ee soo baxsaday ee meel maraya waa kii geedka yimi meel xoola laga waraabsanaya buu yimi dabeetana wuxuu u yimi walamaa warada maa'a madyana wajada calayhi ummata min annaasi yasquun wawajada min duunihim imra'atayni taduudaan qaala maa khaطbukuma qaalataa laa nasqii xataa yusdira alricaa wa abunaa shaykhun kabiir wuxuu u yimi laba hablood oo xishmadi ka muuqato oo aan ragga dhex boodaynin ee ceel la wada joogo dar dadkii oo dhammi u soo arooray oo xoolahoodii wada laakiin iyagoo aan ragga dhinac ordayna xoolahoodii gaar ku haysta oo sugaya intay nimankani ceelka uga baxayaan oo marka raggu ceelka uga baxo ku talagalay intay u tafaxaytaan inay xoolahooda waraabsadaan waa laba haweena oo iyagu reerka xoolahoodii raacayo ilaalinayo o u shaqaynaya aabbahood waxay ku yidhaahdeen muuse markaa waxaanu nahay laba gabdhood
oo aan xoolaha waraabsan bay yidhaahdeen raggu inuu meesha ka tago dadkan wax waraabsanayaa mooyaane aabbahayana bay yidhaahdeen waa oday gaboobo dan baana badday inaanu sida tan yeelno muuse markaasi wuxuu yidhi anaa idin waraabinaya soo horta xoolaha marka muuse nin xooggan buu hayo xoolihii buu hablihii u waraabiyey dabeetana xoolahoodii markii loo waraabiyey bay kaxaysteen waxay ahaayeen hablo caqli badan oo ilaahayna baraya inay ku tala galeen inay mishankan shaqadan ay hayaan si kale ay u oofiyaan inay heli karaan faraasadoodii iyo aragtidoodii waxay gaadhsiisay muuse inuu yahay nin karti badan oo reer lagu aamini karo aabbahood waxay u soo bandhigeen aragtida markaa nin ay guursadaan oo reerkana haya in la heli karo may ka xishoonin inay masaladaa soo bandhigaan aabaheed intay u tagtay bay waxay ku tidhi yaa abat qaalat ixdaahuma yaa abat istaajirhu ina khayra man istaajarta alqawiyu lamiin bay tidhi aabbow bay tidhi ninka kan abaal mari cid la abaal mariyana waxa u roon nin xoog badan oo ammaano badan muuse laba shay bay ku tilmaameen waayo markuu muuse xoolaha u waraabiyey wuu iskaga tegey waxba muu weydiisanay wuu caawinayo intuu u waraabiyey buu geed hadhkii iska tegey muuse ilaahay buu baryey isagoo leh alle subxaanahu wa tacaala leh rabbi innii limaa anzalt ilaya min khayrin faqiir ilaah waxaad xoog iyo awoodi siisay buu leeyay maanta cidlaan ka fadhiya waayo isba uu soo cararo waxba ma hayo geed buu iska hoos fadhiya wuxuu leeyahay ilaah waxaad awoodi siisay ee khayr aad ii dhiibtay maanta cidlaan ka jooga faqiir baan ka ahay labadii habloodna intay aabbahood ka yimaadeen oo la soo tashadeen bay u yimaadeen muuse waxay yidhaahdeen markay qisadii u sheegeen ayuu odaygii yidhi bal iigu yeedha ninka markii ay u yeedheenna fajaa'at ixdaahumaa tamshi cala istixyaa ilaahay wuxuu sifaynayaa hablahani ninkan markay la hadlayeen siday u dhaqmayeen iyadoo nalamnoo ordaysa may soo geline waxay u yimaadeen baa ilaahay leeyahy iyadoo si xishmadi ku jirta ay u soconayso xishood iyo astaan waayeelnimo iyadoo ay ka muuqato waxaanay ku tidhi aabbahay baa kuu yeedhaya oo raba inuu kaa abaal mariyo wixii aad noo shaqaysay ee xoolaha waraabisay inantu markay lahayd aabbaheed ninkan abaal mari kumay odhan abaal mari xoolo uu inoo waraabiyo oo shaqadiisii sii ee waxaad mooddaa inay mustaqbalka dan kale ka damacsanto oo ah ninka kan sifaadkiisay sharxaysaa waxay leedahay shaqana wuu qaban karaa ammaano iyana wuu leeyahy yacni raganimona waa leeyahay diin iyo ammaanona wuu leeyahy waa labada kriteer waa labada sife ee qof kasta shaqo uu ku qaban karo inuu qofku shaqada tan aqoon iyo awood cilmiyeed ama jismi u leeyahy inuu qaban karo iyo inuu leeyahay ammaano aanu tuug ahayn labadaas sifo qofka haddii laga helo waa waxa qof kastoo shaqaalaha lagu shaqo geliyo idan aayaadkan waxaa laynoogu tilmaamayaa hablo ay duruuftu badday inay reerkoodii u shaqeeyaan oo dabad u shaqo tagaan oo guriga ka baxaan laakiin wuxuu ilaahayna barayaa inaanay ragga iska dhex ordaynaynay si gaara u shaqaynayeen oo wax gaara ay qabanayeen waxaan leenahay qur-aanka waxaasoo dhammo ku yaalla waa amhila ama waa tusaalayaal dhammaantood u tusaale ah qiyaamaha inaanay baxsan karin gabadhiyo odhan karin anigu nebiyada kumaan dayan karaynin ee nebiyadu rag bay ahaayeenoo iyagu waxaasay qabanayeen ee annagu maanan haysanin tusaalayaal dhaba kooxda kalena ilaahay uu inoo tilmaamay kuwo dumara sida ilaahay markuu ambiyada qur-aanka ku tilmaamay wuxuu kaloo tilmaamay maxay kuwo dhibaatooday oo shaqadoodii ka soo bixi kari waayey iyo kuwo shaqadoodii ka soo baxay baa ilaahay uu tilmaamay maalan marka nebiye la tilmaamay waxaa la tilmaamay fircawn iyo nebiyullaahi ibraahim kii la murmayeen namruud ay mufasiriintu ku sheegaan iyo dad badan oo habaarqabayaal ahaa oo ambiyadoodii khilaafay markuu qoladana la tilmaamay waxaa kaloo ilaahay tilmaamaya dumar kaloo inkaarqabayaasha iyana tusaale u ah dumarka habaarka qaba dumarka u tusaale ah baa ilaahay tilmaamaya oo ah sheegaysa gabadhu shakhsiyad gaara oo meel taagan inay leedahay oo xataa isagoo nebi qaba inay habaar qabto noqon karto isagoo fircoon qabana khayr qabta inay noqon karto yacni waa shakhsiyad meesheeda taagan marka oo go'aansan karta inay iimaan yeelato go'aansan kartana inay gaalnimo yeelato ilaahay markuu tilmaamay tii fircoon khilaafto le anaa rabbiya ku tidhi rabbi ma tiida ilaahay baa rabbiya wuxuu kaloo alla tilmaamayaa tu khilaaftay kule anaa nebiya
وإلهي وحلي ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين إلهي تسالك وقالنا وحيدين سينا يا باليدي لبدي هوين إلا بدا النبي قبين نبي لوط يا نبي نوح النبي يدو دين خلافين حمها سميي إلهي عذابي النبي نوح تروايين باليدي سبحانه وتعالى هداد إلهي عاصده wadaad baa i qaba iyo sheekh baan la joogaa iyo awliya ay dhashay iyo naba ay dhalay midna wax ku tarimayso haddaad ilaahay diido idan ilaahay wuxuu leeyahay labadii nabi waxba may tarin ee waxa lagu yidhi gaalaatiine gala naarta waxa ilaahay tusaalahan inay siiyey markaa ahlu iimaan kuwa ah oo gaala khilaafay bal ee kuwa ilaahay sheegtay khilaafay iyo kuwa kaafiriina oo nabiga khilaafay waxa kaloo alla quraanka tusaale inugu siiyey boqorro nebiye loo soo diro diiday oo ummaddoodii halaagay waxaa kaloo ilaahay qur-aanka tusaale inugu siiyey haween boqorro ah oo nebiye loo soo diray oo dowrkay nolosha ku leeyiin gartay oo inta islaameen nebiga rumeeyey oo oggolaaday inay ambiyadani meesha maamusho malikatu saba boqorad bay ahayd ilaahay qur-aanka uu ku tilmaamayo wa uutiyat min kulli shay baa ilaahay yidhi naag boqorad oo waddan ka talisa malikatu saba oo wax walba haysata baa ilaahay leeyahay bay ahayd awood badan markuu nabiyullaahi sulaymaan warqadda u soo qoray uu yidhi islaam oo idinkoo islaama kaalaya waxay la tashatay qoladii xaashiyadii agteeda ahayd fircoon markuu xaashiyadii wax weydiiyey waxay yidhahdeen waad xoog badantee nimankan dabadda u saar laakiin gabadhan madaxda ahi markay la tashatay dadkeedii waxay ku yidhaahdeen waynu xoog leenahay adigu go'aami bay yidhaahdeen gabadh caqli badan bay ahayd oo waxay tidhi waar keligay waxba go'aamin maaye maa kuntu qaati'atan amran xataa idinkoo wax ii sheega mooyaane waxba go'aansan maaye taliya bay tidhi ragow aan wada tashanno talaa loo sheegay weliba waxay tilmaamtay boqorradu haddaynu jabno inay khatar yihiinoo dadkii cizada lahaa iyo sharafta in la dulaysan doonay mahlaka hayna gelinninee tashada bay tidhi akhiiran gabadhii way islaamtay may odhanin waa nala yeesoo madaxnimana laga qaaday innii aslamtu maca sulaymaana lilaahi rabbi alcaalamiin bay tidhi ilaahay baan anigu isu dhiibay bay tidhi nebi sulaymaan maciisaan la islaamo allaan isu dhiibay aniga iyo sulaymaanba ilaahay baanu raacayna gabadh aad u caqli badan bay ahayd waxay dhahdaan weedhaha diblomaasiga ay ku hadlaysay carshigeedii waa tii intii la qaaday jinku qaaday ama kii cilmiga la siiyey intuu qaaday waa tii la geeyey inta saba laga qaaday baa falastiin nebiyullaahi sulaymaan oo jooga loo geeyey dabeetana wuxuu yidhi waar carshigan sariirteedii boqortooyo weeyaan kursiga boqortooyo dhan bedela buu yidhi bal siday ku taqaanay si aan ahayn gabadhan buu qiyaasayaa bal caqligeedu intuu leegiyey wuxuu ku yidhi markaa haakada carshuki naakani ma yahay baa la yidhi gabadhay carshigaagii sidanoo kale ma aha sariirtii boqortooyada aad ku ogayd saba aad kaga timi sidanoo kale ma u ekaa baa la weydiiyey weedh diblomaasi uu yidhaahdo tii ugu qaalisanayd bay tidhi kaannahu huwa bay tidhi waa isagii oo kale run iyo beentoona markaa ma aha isagiina wuu noqon karaa hayrkiina wuu noqon karaa wax u eg labadii jawaabood midna may bixine waxay tidhi kaannahu huwa waaba isagii oo kale waxay garatay dowrka ay nolosha ku leedahay ilaahay ugu talagalo intay islaamtay ayay tolkeedna badbaadisay oo ay nebi sulaymaan u hoggaansanaatay halkuu fircown tolkiina uu badbaadin waayey ee badda alle ku halaagay isaga iyo tolkiiba waxaa alla taana tilmaamayaa gabadh sulto gaadhay laakiin markii iimaan iyo diin soo gaadhay wuxuu alla fara yeeshay madax bay ahayd imika waxaa laga yaabaa dadka badh inay yidhahdaan gabadhu maxay madax u noqon weyday waar kuwii islaamayba way iskaga hadheen dumarkii hore ee ilaahay tusaalaha idinka dhigay ee iyagoo boqortooye haystaa ah inay duni dhan ka telinaysay oo ilaahay uu ku tilmaamayo boqortooyaday haysatay weliba ilaahay leeyahy waa uutiyat min kulli shay haddana markay islaamtay ilaahay wuxuu leeyahy way ka tanaasushay idan qur-aanka waxaa u baahantihiin inaa in badan akhridaan ilaahay kitaabkiisu inuu maciina ahaado wakhtigii lay qadaray ama loo qoondeeyey inuu mutamar ku socdaa wuu dhammaaday amhilada qur-aanka ku jirtaana way badantay waxaan u doortay inaan mawduuca gabadha ee qur-aanka misaalka uu alla bixiyey idiin tilmaamo inaadan idiin tilmaamo dowrka alla uu gabadha ugu talagalay inay ilaahay weydiisaan aydan wadaad weydiinin waayo qur-aanka haddaa akhridaan
wadaadku ama falsafad reer galbeed ha qaato ama labaclabacle ha ahaado ama ha adkaado ama mintid ha ahaado ama garab bidix wuxuu doonaya ha sheegto waxa kaaga filan inaad kitaabka qur-aanka u fiirsatid waxa kaaga filan inaad eegtid kuwa alla tusaalaha kaaga dhigay ilaahay markuu kuwan soo qaadayo dumarkan waxa loogu talagalay inay noqdaan kuwa ahiigsataan inay noqdaan noloshiina kuwa ah kaga dayataan waxa ku jirta markaa tusaalayaashii oo dhan aakhirana cudurdaar heli maysid marka adiga oo muslim oo ilaahay qur-aan kuu soo dejiyay haddaad cudurdaar kale raadiso ikhwati fi lcaqiida kelmadayda waxaan ku soo koobaya qur-aanku waa hadyi ilaahay leeyahay ina hada alqur'aana yahdii lilatii hiya aqwam baa ilaahay yidhi qur-aankani wuxuu dadka ku hanuuninayaa tub la arko tii u toosnaan badan haddaabay jirto waddooyin dadka badhay odhan karaan armay sidanina fiicantay ta ugu quruxda badan laa ilaahay idin tusayaa baa la yidhi inaynu ilaahay u hoggaansanaano awaamirtiisa raacnaa muhima ballanna ilaahay wuxuu ku qaaday hamigeenna iyo kurbadeenna iyo mushkiladeenna oo dhan inuu isagu faydayo alle subxaana wa tacaala haddaynu inaguna aqballo wuxuu ina faray inaynu raacno in tansuru llaha yansurkum wayuthabbit aqdaamakum nusuusta qur-aanka aan tilmaamay maanta korkiina ku akhriyeyna akhriskayga ha ku koobnaanina dib qur-aankii u muraajaceeyo bal isku daya inaad si dhaba u daristaan akthar min 30 imra'a baa ku soo arooray qur-aanka ama sababu nuzuul ay u ahaayeen ama si waadixa ugu soo arooray ilaa 30 dumaraa ka helaysaan in ka badan kuwaasi dib u daraaseeyo bal isku daya inaad barataan wallahu aclam billahi tawfiiq